mid ka mid ah halistii ugu darnayd ee uu wajaho Ibrahim Traore. Madaxweynaha Burkina Faso Ibrahim Traore ayaa maalinba maalinta ka dambaysa wuxuu reer galbeedka kala kulmayaa weerar isdaba joog ah iyo caqabada jiritaanka dalkiisa iyo naftiisa halis ku ah. Ibrahim Traore ayaa mar kale ka badbaaday dabin aad u weyn iyo arrin khatar ah taa oo ay soo maleegeen wadamada reer galbeedka ee siyaasadiisa la dagaalsan. Haddaba arrintan maxay tahay? Sidayse u dhacday? dalka Burkina ayaa la soo galiyay 47 gaari oo ah gawaarida xamuulka kuwa oo ay ku qoran tahay human aid amaba lagu sheegay dalkana lagu soo galiyay xaduudo badan iyo checkpointyal badan oo la isku baarana ku soo dhaafay in ay yihiin baabuur gargaar u wada dadka reer Burkina Faso iyadoo ay ku qornayd human aid. laakiin sirdoonka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran Ibrahim Traore ayaa ka warhelay in gawaaridane waxa ku qoran iyo waxa ay sidaan ay aad u kala gedisan tahay. Gawaaridii ayaa gacanta lagu dhigay marka la baarina waxa la sheegay in gawaarida 47 gaari ah dhammaantood ay sideen hubka noocyihiisa kala duwan waliba hubka kan ugu halista badan. sidoo kale marka baaritaan lagu sameeyay waxa la sheegay in hubka qiimihiisa uu ka sareeya 100 milyan oo dollarka Mareykanka. sidoo kale waxa warbixinta lagu sheegay in la qabtay 3 gaari oo ayaguna ay ku qoran tahay human aid laakiin sida wax ka bedelan waxa ay sidaan 47 gaari. 3 gaari ayaa la sheegay in ay wadeen mootooyinka kuwooda aadka u dheereeya iyo baaskiil casri ah oo motor leh. xaaladani ayaa ah xaalad halis ah oo haddii Ibrahim Traore uusan gacanta ku dhigi lahayn naftiisa iyo dalkiisuba ay qalqal ku jiri lahaayeen. waxa la doonayay ayaa waxay tahay in hubka dalka la geliya kadibna ragga mucaaradka ee siyaasadda Ibrahim Traore ka soo horjeeda la hubeeya hubkaana gacanta loo geliya wadanka gudihiisuna uu ka qarxo dagaal halis ah ama laga abuuro dagaal sokeeya. haddaba Ibrahim Traore maxaa maalinba maalinka ku xigta loo weerarayaa? maxaa loogu duulayaa? maxaa loo dhibaataynayaa? kaliya waxay tahay in uu reer galbeedka ku yiri dalkan inaga iska leh nagana maamulanayna raalli ahaada. inta kaliya ayaa lagu haystaa gaar ahaan Faransiiska oo wadanka gacanta muddo badan ku hayay ayuu ka saaray. sidaa darteed ayaa lagu la dagaalsan yahay. haddaba dalka Burkina Faso haddii aad timaado adigoo cadaan ah ama wadamada reer galbeedka ka yimid si wacan ayaa lagu baarayaa. meel kasto aad tagayso iyo cid kasto aad la kulmaysana waa lagu la soconayaa. halka wadamada kale ee Afrikaanka markuu qof cadaan ah ama qolo cadaan ay timaado waxay doonaan ay ka dhax sameynayaan dhaqdhaqaaqooda iyo waxa ay ku kacayaan aysan jirin cid la socota. laakiin dalkani waxa lagu soo qaaday weeraro badan dagaal badan ayaana ka dhaxeeya isaga iyo reer galbeedka. dhanka kale wuxuu gacan khibradeed ama mid agabba ka helaa wadamada sida Ruushka iyo Turkiga oo garab siiya xagga sirdoonkana ka caawiya. laakiin reer galbeedka ayaa maalinba maalinka ka dambaysa waxa ay ku soo qaadayaan weerar kii hore ka halis badan. hadba meel ayay ka soo galayaan. mar waxa la isku dayay in isaga la sumeeyo, mar waxa la isku dayay in ilaaladiisa gaarka ah malaayiin dollar oo lacag ah loo ballan qaado iyo waxa weeye wadankii uu degi lahaa loo ballan qaado oo la yiraahdo Ibrahim Traore Qaraje. arrimaha weerarada iyo kuwa ka daran oo ka badan dhammaantood waa lagu fashilmay. haatanna xaaladdu waxay maraysaa in magacyada hay'adaha gargaarka sheegta lagu soo qoro sida darteedna dalka lagu soo geliyo kadibna markay dalka gasho waxa weeye ninkani lagu qaarajiyo ama lagu weeraro ama dalka gudihiisa qalalaaso iyo dhibaato iyo problem laga abuuro. waxa lagu la dagaalamaya kaliya waxay tahay wadnimada dalkan aniga iska leh
adinkuna dal baad leedihiin dalkiina aada dalkayga ii daaya dadkayga ii daaya intaa keliya ayaa la isku haystaa waayo ma jira wax khayraad ah ama waxa weeye wax hanti ah ama wax dhul ah oo reer galbeed ka haysta ma jiraan inta ayaa lagu la dagaalamayaa madaxda kale Afrikaankuna dhammaantood keena ayaa lagu hayaa oo ma jira hal dal ah oo awood u leh inuu wadamada reer galbeedka ku yiraahdo warnimayo raalli ahaada innaga maanta waxay nagu hayaan waad aragteen waxay degan yihiin xalane waxay doonaan ayay ka sameeyaan waxay doonaan ayay ku qabtaan xitaa madaxweynaha dalkeena ma geli karaya xalano isagoo aan loo fasixin waxa ka socda iyo waxa dhaqdhaqaaq ka jira iyo waxa laga sameeynaya waxba kama oga siyaasiyiintu markay isqabtaan maxkamadda kaliya ee ay aadaan ee waxa weeye kala garsoorto oo waxa weeye u kala gar qaada waa tan ku taala xalane halka ayaynu anaga maanta joognaa oo xaalkeenu waa allow sahal